Ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijkii baro naxwaha afka Soomaaliga. Waa macallin Cabdulqaadir Abukar Sheekh oo idin leh dhammaan dhagaystayaasheenna iyo ardada soo dhawaada. Qaybta saddexaad waxaanu ku soo qaadanaynaa waa cutubka saddexaad magaca ama magaca keli iyo magac wadar. Waxaan ku baran doonaa magac keli iyo magac wadar. Waxaan ku soo dhex jirnaa weli waa qaybtii koowaad ee naxwaha oo ah magac baan ku dhex jirnaa. Magac ayaa wuxuu qaybsamaa magac keli iyo magac wadar. Haddaba waa maxay magac keli iyo magac wadar? Bal aan ogaano. Magacyada afka Soomaaliga waxaa kale oo loo qaybiyaa waa magac keli singular iyo magac wadar plural ama jamac. Marka hore aan ka bilowno waa maxay magac keli? Magac keli waa magac tilmaamaya shay keli ah, goob keli ah ama fikir keli ah ama hal fikrad tilmaamaya. Sida kab waa hal shay, kabta, guri, guriga, armaajo ama cupboard, armaajada waa hal armaajo keliya, fikrad waa hal fikrad. Dhammaan waxay tilmaamayaan hal shay. Marka magaca keli markuu yahay oo kab uu yahay cayntiisa oo waxa weeyaan kabta bay noqotay. Kabta waa cayn dhadig buu qaadanayaa. Marka hadda anagu waxaan doonaynaa inaan barano keliya magac keli muxuu yahay, magac wadarna muxuu yahay. Keli waa hal shay, wadarna waa wax badan. Bal aan gelin weero. Keli magac keli iyo weero. Weero waa maxay? Waa jumlado ama sentences ama meaning weeyaan. Kani waa guri. Markaan dhahno waa guri, hal guri buu tilmaamayaa. Tani waa armaajo ama cupboard. Armaajada waa hal armaajo. Waxa uu jiifaa sariir. Waxa uu ku jiifaa sariir. Sariirtaas waa maxay? Waa hal sariir keliya. Tani waa dhalo. Waxaa ka horeeya raalli ahaada. Kani waa kursi. Waa hal kursi keliya. Kani waa kursi, hal kursi wey. Tani waa dhalo weyn ama hal dhalo ama hal quraarad weyn. Waa hal shay. Marka intaas oo dhan waxay tilmaamayaa waa magac keli ah. Waa maxay magac wadar ama jamac? Bal aan aragno. Ama plural waa maxay? Magac wadar waa magac tilmaamaya ama na tusinaya qof, shay, goob, fikrad ama fikir tira ahaan ka badan hal. Wax kastoo hal ka badan marka magacii hal buu ahaa uu isbedelaya. Muxuu noqonayaa? Wax badan buu noqonayaa. Wixii laba ka badanba. Tusaale, kab markay tahay oo wadarteeda waa maxay? O baa ku darsantay kabo weeyaan. Ama kabta waa markay cayiman tahay weeyaan. Guri ama guriga waa weli magac keli weeyaan. Waa hal guri. Laakiin guriyo bay noqonayaan. Guriyo. Aabe u fiirso. Aabayaal bay noqonayaan. Miis u fiirso. Miiska hadduu yahay hataa waa hal shay oo cayiman. Laakiin miisas waa markan waa magac wadar. Dhinacaas kalena waa wadartay oo cayiman. Kabaha, guryaha, aabayaasha, miisaska way cayiman yihiin. Laakiin u fiirso kabo kuwa dhexda ku jira oo calaamadda casaanka marsan xarafka ugu dambeeya casaanka ama guduudka waa kabo, guryo, aabayaal, miisas. Kulli waxa weeyaan wadar weeyaan. Waa plural weeyaan. Magacii halkaha oo batay. Tusaalayaal kale oo magac wadara maxaa ka mid ah? Hooyo baa ka mid ah. Hooyada weli waxa weeyaan waa magac keli oo cayiman. Laakiin hooyooyin bay noqotay. Hooyooyin, ooyin baa ku darsantay. Dhinaca kale aanu noqono kursi. Kursiga kuraas buu noqday. Kuraas. Jilib. Jilibka waa weli hal shay weeyaan. Jilbo way bateen. Jilbo bay noqonayaan. Ukun u fiirso. Ukunta waa isla halkii shay keliya. Ukuxaan bay noqotay. Ukumana waa la yidhaahdaa. Ukuxaan bay noqotay. Ukuxaanta. Markay yihiin cayiman yihiin wadarta, hoyooyinka, kuraasta, jilbaha ay noqonaysa. Laakiin hadda ujeedada waxa weeyaan calaamadda casaanka u fiirso. Hoyooyin, kuraas, jilbo iyo ukuxaan inaan barano. Intaas weeyaan ujeedadeenna oo ah magac wadar. Bal fiiro gaaraan eegno. Waxaa jira magac koox. Magac koox baa jira. Magac koox wuxuu u dhaqmaa waa shay badan oo wadara weeyaan. Laakiin astaan keli buu leeyahay.
koox baa jira macnaa magac koox ahaan u taga laakiin astaantiis waa keli casharo dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa magac koox laakiin u fiirso dad fiiri waa magac wax badan wey laakiin wuxuu leeyahay astaan keli buu leeyahay xoolo u fiirso astaan waa wax badan haddana keli bay leeyihin sonkor u fiirso sonkoro maaha waa sonkor astaan keli bay leedahay waana magac maaragtay waxayna tilmaamaysaa wax badan dumar u fiirso astaanteedu waa keli hase aatee maxay u taagan tahay wax badan marka koox baa la yidhahdaa magacyadaanayd gadaal baan ka baran doonaa aan u galno marka magacyada wadarta maxaa lagu gartaa macnaha maxay leeyihiin astaan see lagu garanay ama xaggey astaan ahaan maxay qaataa magacyada wadarta ama buluraalka ee afka soomaaliga waxaa inta badan gadaal ka raaca xarfaha kale ah oo ooyaal ooyin ama xarafka shibanaha ugu dambeeya ayaa laba dhaca waxaana ka hormara xarafka o bal aan aragno bal hab waxaa jira bal waxaan isku daya inaan soo biyo jaantus oon u kala qaybay si guud ahaan aan u fahamno inta aanan u gelin jaantus baan aan u soo biyo jaantuska bal aan eegno jaantuskan wuxuu ku salaysan yahay qoryaalka maaratan xawiyaasha aan akhriyey waxaan inta badan kasoo qaatay waxa weeyaan qoraha uu qoray Morgan Nelson qaabka uu qoray ayaan jaantus u soo biyey oo aan hagaajiyey 5 qayb 4 qayb ilaa 5 qayb ayaa loo qeybay marka inuu 5taas qayb ayaan soo qaatay marka buugtaas aan akhriyey buugta naxwaha afka Soomaaliga oo inta badan aan eegay aad bay u kala duwan yihiin runtii qaabkay u qoraan marka qaabku waxaan 5tan qayb oo ayaan maaragtay u qaybiyey kan koobaad waxa weeyaan magacyada ku dhamaada ayaal kan labaad waa magacyada ku dhamaada ooyin saddexaad magacyada laba dhaca afaraad 4 qayb kale u qaybsama asaga naftiisa wuxuu u qaybsamaa 5 qayb u qaybsama 5 aan dhaho waa kuwa ku dhamaada oo kulli oo buu ku dhamaada laakiin haddana asagii baa 5 u qaybsama oo arkaysa kabo jilbo mindiyo baaburo iyo yaxaasibo waa 5 qayb kan ugu dambeeya waa magacyada aan raacin nidaamka aan raacin oo nidaamka maaragtay oo gaarab uu iska wataa marka kaas 5 baan ka dhigay kan koobaad waa sida tusaale waxa kamid ah ayaal magacyada u dambeeya ayaal maxaa kamid ah aabayaal oo kale kan labaad ooyin magacyadaas waxaa kamid ah hooyooyin oo kale kan saddexaad waa laba dhacaan magaca xarafka dambaa laba dhaca sida miis buu ahaa miisas buu noqday sas miisas u fiirso laakiin xeerka afraad 5 qayb buu u qaybsamahay waa xeerka runtii xogaa ugu dhib badan oo u baahan in waqti la geliyo ardayga uu ogaado ama maaragtay macallimiintu ay si fiican u fiiriyaan xeerka afraad baa ugu dhib badan asigiiba 4 qayb u qaybsamahay waa kabo jilbo mindiyo baaburo iyo xaaso xeerka shanaad asaga waaba khilaaf xeerarka dhan buu khilaafaya waan arki doonaa noocyo badan weeyaan sida geedo baa kamid ah ugxaan baa kamid macallimiin magacyada carabiga afka carabiga aan kasoo qaadanay baa kamid ah bal aan socono hadda kan koowaad waxa weeye magacyada kelida ah ee ku dhamaada xarafka e magac kastoo keliya oo ku dhamaada xarafka e waxa uu ku dhamaadaa ama wadartiisa waxa gadaal ka raaca waa ayaal maxaa kamid ah aabe oo kale e buu ku dhamaada aabe u fiirso ayaal baa raacay aabayaal buu noqday furo u fiirso ayaal baa raacay furoyaal bay noqdeen marka magac kastoo e u dambeeya waa xeerka koowaad ee qaabka wadaraynta magacyada afka Soomaaliga e wixii u dambeeyay ayaal baad siinaysaa i wixii u dambeeyay ayaal baad siinaysaa baan ka wada fure oo kale iyo aabe furayaal aabayaal dhinaca geeska waxaan ku qoray wadarti cayiman baan maadaama ay xarfahan ardada qaar u baahan inay ogaadaan wadarta markay ay noqonayso wadar cayiman way isbedelaysaa oo qodob kale qaadanaysaa oo qodobkii hore qodob kale bay qaadanaysaa aabayaasha iyo furayaasha bay noqdeen tusaale ahaan weer baan aan gelino kuwani waa aabayaal wanaagsan shirka waxaa yimid aabayaal faraxsan kuwani waa furayaal cusub axmed waxaa ka dhumay ama axmed waxaa ka lumay furayaal badan waa weeraha waxaa loo baahan ardayga kunu noqo si uu maaragtay u barto qaabka weeraha loo gidinayo ereyaalka qodobka labaad wuxuu noqonayaa ama xeerka labaad magacyada kelida ah ee wadartooda ay ku dhamaato ooyin waa xeerka labaad weeyaan maxaa kamid ah sidaan hore usoo aragnay hooyo baa kamid ah magaalo baa kamid ah shaqo baa kamid ah sheeko kuwa kale markaad aragto
xarafta marka ay tahay keli baaba o bay ku dhammaanaysaa marka kadibna ooyin yaa u dambaynaysa hooyo hooyooyin magaalo magaalooyin shaqo shaqooyin sheeko sheekooyin waa ujeedaa dhinacaas geeskan waxaan ku qoray wadartii oo cayiman hooyooyinka magaalooyinka shaqooyinka sheekooyinka dhammaan magacyadan markaad u fiirsasid keligooda wuxuu ku dhammaadaa o marka waxaa moodaa kuwa inay si fiican isu raaceen hooyo iyo magaalo shaqo iyo sheeko xeerka bal aan gelino weere aan gelino kuwani waa hooyooyin wanaagsan soomaaliya waxaa ku yaala magaalooyin waaweyn xafiiskan waxaa ka bannaan shaqooyin kala duwan buuggan waxaa ku qoran sheekooyin xiise leh ma arkaysaa buuggan waxaa ku qoran sheekooyin waa wadartii aan gelinay weere aan gelinay ama sentence aan gelinay ama meaning aan gelinay weyaan xeerka saddexaad waa maxay magacyada wadartooda uu xarafka dambe laba dhaco xarafka dambea laba dhaca waxaana ku darsama xaraf a baa dhexda kaga darsama ama kasoo hormara laba dhaca maxaa ka mid a buug baa ka mid a fiiri buug buugag bay noqotay ga'dii way laba dhacday miis fiiri miisas sa'di way laba dhacday af fiirso afaf afkii baa laba dhacay dhinacaas kale waxaan ku qoray wadartii oo cayiman buugaagta iyo miisaska iyo afafka waa wadartii oo cayiman weyan marka u fiirso buug maxay noqotay buugag miis miisas af afaf magacyadan kelida ah waxaa la yidhahdaa waa erayaal hal cod leh macnaha erayaal hal cod leh waay ama hal alan bilin alan balweero aan gelin balweero iyo magacyada laba dhaca fasalka waxaa yaala miisas cusub kuwani waa miisas qurux badan afrika waxaa looga hadlaa afaf kala duwan in la barto afaf badan waa wax wanaagsan kuwani waa buugag cusub marka ardayga waxaa la filaya inuu ku noqo weerahan halkan ku qoran qodobka afaraad waa qodobka ugu dhibka badan asigi wuxuu qaybsamaa shan qaybsaan u sheegnay maxaa ka mid ah waa magacyada wadartooda ay ku dhammaato oo kab kabo waana hal cod u fiirso kab waa dhammaan ereyadana waa hal cod kab cag lug ama hal alan baa la yidhahdaa marka kab baa la yidhahdaa kab wax soo galaya kab waa is wataan kab kabo cag cago lug lugo marka ayagoo wadarta cayiman waa maxay kabaha lugaha ayagana waa israaceen dhinacaas markaa fiirsi lugaha iyo kulli iyo cagaha aan gelina balweero sawirkan waxaa ka muuqda laba cago kuwani waa kabo cusub kuwani waa lugo waaweyn marka weere baan gelinay ereyaalkii maarta wadarta ahaa shanta qayb maxaa ka mid ah afar ba baan nidhi dadka qoraal naxwaha qaar waxay yidhahdaan afar beed aniga ba baan u baxshay alfabeetada soomaaliya maadaama ba ta ja xa ay tahay ba baan ka bilaabay wadarta magacyada kelida ee labada alan leh ama labada cir leh waxaa ka dhuma ama waxaa ka luma shaqalka waxaana wadarta gadaal ka raaca oo waxaa la yidhahdaa incostis vocal baa la yidhahdaa incostis vocalkan waxa weeyaan vocal baa baxaya fiirsi jilib fiiri jilib jilib muxuu ah ay baa baxay jilbo bay noqotay gabadh fiiri aada baad u dhehaysa aad baa baxaysa waa maxay noqotay gabdho a baa ka dhuntay muruq u fiirso murqo oon wuu ku dhammaaday marka xarafkaas inscots vocaalka ayaa ka dhumay macnaha vocaalkaas baa dhumahaya vocaal waa maxay waxa weeyaan shaqalka wey shaqal baa dhumahaya jilib buu ahaa ida la-ada iyo bida waxa u dheh iida way dhuntay jilbo bay noqotay way turmatay gabadh gabdho saasoo kale muruq murqo bal weere aan gelino weero ay wadartooda ku dhammaato oo shaqalna uu ka lumo sida hore usoo sheegnay dadku waxa ay leeyihiin laba jilbo kuwani waa gabdho dhigta dugsiga bukhaari axmed waxa uu leeyahay murqo dhisan tusaalihii baa socda weli nirig nirgo bay noqotay habar habro magacyada kelida oo labada alan leh waxaa ka mid a sida nirig waa laba alan mujida nirig laba alan waa nirig habar
habar mujida habar magacyada kelida ah oo leh laba adan cod wax ay wadartooda ku dhammaataa oo ayadana waxaana wadarta ka dhuma shaqalka nirig habar cirib nirgo bay noqotay nirig habarna habra bay noqotay ciribna cirba bay noqotay tusaalaha marka aan gelino maaragtay tusaale cali waxa uu haystaa 4 nirgo habro oo kala feeri habro badan ayaa ku nool xaafadan kuwani waa 2 cirbo ba waan soo arnay taana maxay tahay magacyada kelida ah ee ku dhamaada xarafka i wadartooda waxa ay ku dhamaataa xarafka o xarafka ina waxa ka hormaraya tusaale waxa kamid ah mindi mindiyo ay noqotay ciji cijiyo ay noqotay darbi darbiyo ay noqotay oo ba kulli xarfan waxa u dambeeyay i ba u dambeeyay markay noqonayaan wadarna ya ba dhaxda soo gasha oo adan waa u dambaysta xarafkan buugta ku qoran xabaha dadka qoran xawleeda qaar waxay ku tilmaamaan xeerka ya o bay dhahan isku daran ya o bay dhahan laakiin anigu waxaan qaatay o baan qaatay tusaale ahaan kuwani waa mindiyo afaysan kuwani waa darbiyo qurux badan waxaan arkaa gacan cijiyo dhaadheer leh waa weerihii marka waa weer ay ku jirto magacyo wadar ah oo ay ku dhamaato o yaana ay ka hormarto xarka afarja waa maxay waa magacyada kelida oo ka kooban in ka badan 2 shibana ka badan bay ka kooban 2 shibana ka badan oo 3 shibana weeyaan kuwan waxa lagu gartaa waxa kamid ah waxa u dambeeya shibanayaasha ba da la na ama ra kadibna way laba laabmaan oo wadarta magacyadu waxaana ku darsama oo tusaale baabuur bay fiiri baabuuro raacda dambe way laba laabantay saaxiibo daruuro bay noqotay oo aan u dambaysa marka waxaan ugu gartaa xeerkani xarafkii ugu dambeeyay oo ah shibana ayaa laba laabma marka baabuuro weeyaan saaxiibo daruuro marka wadarta caymana waa baabuurada saaxiibada daruuraha bay noqotay nin walba gooni uu maray aan weera gelina bal wadooyinka waxa socda baabuuro fara badan maanta axmed waxa uu leeyahay saaxiibo wanaagsan shalay cirku waxa uu lahaa daruuro madow oo rooban kan u dambeeya waa maxay waa afar xa weeyaan magacyada kelida ah oo ka kooban in ka badan 2 shibani way ka badan kuwa kala 2 shibani bay ka badan yihiin waxaana ku darsama xarafka ya oo aan waa u dambaysa kuwana shibanayaasha badan ya xaas fiir meeqa shibani ya iyo xa iyo sa 3 shibana weeyaan ya xaasyo ayuu noqonay libaax fiir libaaxyo wadartoodana way cayiman tahay waxa weeyaan ya xaasyada libaaxyada xeerka saasoo kale dadka qaar culimada oo dhinaca qoraalka naxaw waxay yiraahdaan xeerka ya o bay iska dhahaan laakiin anagu waxaan qaadanay maadaama 3 shaqal oo ka 3 shiban oo ka kooban yahay xeer gooni ma ka dhin 4 xa baan dhahnay bal aan gelino bal weero aan gelino weero ay wadartooda ku dhamaato oo iyana ka hormara waa maxay sida webiga juba waxa ku nool yaxaasiyo fara badan webiga juba waxa ku nool yaxaasiyo fara badan baa ku nool markaad fiiriso saas uu leeyahay afrika waxa ku nool libaaxyo u socda koox fiiro gaar ah inta badan magacyada afka Soomaaliga marka ay wadar pluralka markay noqonayaan waxa ay yihiin oo ay noqonayaan plural cayiman markay noqonayaan ayntii hore uu watay waa isbedelaa markuu yahay keli cayiman markuu noqdo wadar cayiman waa isbedelaya magacii oo wuxuu qaadanayaa maaragtay cayn kale ayuu qaadanayaa oo sida wiilka markuu ahaa wiilasha bay noqotay fiiri baabuurka ayuu ahaa baabuurta way batanta abuu qaatay gabarta aad gabdhaha bay noqdeen warshada bay warshadaha bay noqdeen kana waa iska ogaada maadaama uu hadda muhiim uusan ahayn laakiin muhiimadda waxay tahay kaliya inaan barno wadartii marka aan aragno leelisyada aan ugu dambaysiino leelis qeex ama sharax magac keli waa maxay sheeg magac wadarna sheeg ardayga waxa la rabaa marka inuu sheego ama macalinka uu sheego in ardayga uu qeexo keli waa maxay wadarna waa maxay
number 2 su'aasha labaad maxay tahay qor 10 erayaal waa inuu qoro ardayga oo ka kooban magac keli kadibna ka dhigo wadar kadibna wadar ha geliyo 10 eray oo ha keeno macad keli ah wadarna ha geliyo erayaalkan hoos ku qoran ka dhig wadar kadibna weerar geli hooyo wariye guri dowlad caano geed wasaarad hanti biyo lacag ukun wado dhalo iyo xoolo intaasoo eray ah wadar ka dhig kadibna weerar geli casharkeena maanta intaasay ku dhoon yahay waxaan kusoo gabagabeynayaa ilaha oo aan inta badan sida casharkii hore aan ku sheegay aan kasoo qaatay waa ilahan meesha ku qoran number 1 waa asaaska naxwaha afka Soomaaliga waa buuggii ugu horreeyay ee qorto wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare Soomaaliya ayaa qortay sanadkii 1973 baa la qoray waa naxwihii ugu horreeyay waxaa jira naxwo kale aad u faahfaahsan oo qoray oo la yiraahdo barashada naxwaha af Soomaaliga waxaa qoray Mansuur Cabdalla Cumar iyo Buglili Anashti 1999 bay qoreen dokumentiga muhiimka aan kasoo qaatay inta badan qoraalkay ku salaysan yahay waa dokumentiga lagu magacaabo in contrastive grammatic for most tolerant la yiraahdo oo uu qoray Morgan Nilsson uu qoray oo macallin baraka ah jaamacadda Göteborg dalka Sweden kana dhiga naxwaha afka Soomaaliga ka dhiga yaa inta badan isticmaalay oo meelash ayaan kasoo qaatay qoraalkayga waxaan idin leeyahay inta aan kulmi doono wixii su'aala ama faala ama tala ah ku soo hagaajiye naxwaha afka Soomaaliga @gmail.com ama casharada asliidin waa muhiim aad u baahantiin si aan ardayda uga faa'iideyno iyo dadka doonaya in ay bartaan luqadooda afka Soomaaliga waxaan ku soo gabagabeynayaa waad mahadsantihiin daawashadiina waxaan idin leeyahay sawirkan jeclaada faaleeya isla markaasna qaybiya waadna ku mahadsantihiin dhageysigiina iyo talooyinkiina casharkan intaas ayuu ku egyahay nabadgelyo